aniga dhinacayaga xagga dhaqaalaha laba arrimood oo waaweyn baa ku jira. mid waxa weeye arrintan isku socod la'aanta iyo xidhxidhka meel walba xidhan tahay maxay dhaqaalaha u geysatay ama u geysanaysaa 8 bilood ee soo socda ilaa sanadka aakhirkiisa maxay u geysanaysaa halkeense wax kabka raadin karna ilaa dawlad baan nahay oo dawladdii waa soconaysaa haddana dadkii waxaa la leeyahay xanuun baa idin hayay meel jooga waana ta ugu importansan weeyaan in dadku kala joogaan taasi markaa dhaqaalii hoos bay u dhigaysaa intay hoos u dhigaysaa waa meel intay hoos u dhigto xaggeen ka doonaynaana waa meel kale dawladdu waa inay socotaa. arrinta labaad madaxweyne waxa weeye khasaaraha ay keentay muxuu xanuunkani keenay ama lacagaha iyo kharashka loo baahan yahay in la iskaga celiyo oo isaguna additional cost isagana xaggeen ka raadina ayaa iyaduna meesha ku jirta. arrinta saddexaad waxa weeye wasiir maareeye sheegay oo ah si aanay ascaartu u sara kicin maxaan samaynaa lianna wixii dalka soo gelayay baa yaraanaya laga yaabaa arrintuna waa iska supply and demand baa xukuma price-ka marka qofkii wax yar haystay hadduu og yahay inaan waxba soo gelayn inuu price sare u qaado inkastoo anigu aan arrintaa ka waaninaya dadku inay sameeyaan haddana way dhacaysaa waanay dhacday sideen taana wax uga qaban karnaa. saddexdaa arrimood baan doonayaa mid walba is yardu taago anigoo ku dheeraanay. ta u horeysa dhaqaalaha generalka ah dhaqaaliheennu halkan wuxuu inaga soo galaa waa laba meelood waa furdada iyo cashuuraha beriga labadiiba xoog bay u dhacayaan haddii la iskuba socon waayo oo meel la tegi waayo dadka kala joogsadaan waxay aad bay u dhacayaan. annagoo marka horeba dhaqaalaheennu kab u baahnaa oo kab ku jirnay budgetkeennu kab u baahnaa oo EU-da iyo World Bank iyo African Development Bank meelaha ka heli jiray haddana kabkii ka sii badan ayaynu u baahanaynaa. marka qiyaastii marka dalkoo dhan baan ka hadlaynaa maaha federal government keliya dalkoo dhan qiyaastii annagu waxaan qiyaasnay 245 milyan 8 bilood soo socda inay naga dhigmayaan oo aan loo geyn wixii hore kabkii hore ku jiray meesha aan loo geyn dalka oo dhanna ay taasi ka dhacayso federal government-ka ilaa 70 meelaha inay ka dhigmi doonto oo aan kabkii hore ku jirin kabkii hore nebi ku jirin xaggee laga doonayaaba markaa meesha ku jirta. mudane madaxweyne waxaan wada hadalla aad u qoto dheer kula jirnaa international community-ga gaar ahaan banka adduunka iyo IMF-ta oo IMF shaqadeedu tahay inay nala eegto figures-kan inuu ka hadlay inay sax yihiin lianna way garanayaan wax walba meesha ka imanaya way garanayaan marka iyagu yidhaahdaan arrinta dhaytadaasaysan waa sax weeye dabeetana aan la baryo tagno ayay noqonaysaa taasaa markaa ugu yaraan weygii 2-3 jeer aan ka kulannaa waana soo conclude-garaynaynaa haddii la yidhahdo laga yaabo waxoo dhan inaan helin laakiin wax ku dhow in laga yaabo laga helo World Bank African Development Bank iyo EU-da in laga helo ayaan isku dayaynaa. ra-iisul wasaarena khayr allah siiya aad iyo aad buu ugu hawlan yahay arrinta iyadaa. marka taasi waa taa lacagii hoos bay u dhacayaan dakhligiina soo geli hoos buu dhacayaa sidii loo kabayay markaa iyadana in laga shaqadeeda yaa wadnaa. arrinta labaad waxa weeye markaa xanuunkan inoo yimi kos buu keenay diyaar umaynaan ahayn laakiin haddana at least minimum capacity inay yeelano ayaa loo baahan yahay in sariire inagu filan ama wuxuun la sameeyo ayaa loo baahan yahay wasiiradda ka hadli doontaa qalabkii wax lagu baadhayay baa loo baahan yahay meeshii dadka lagu karantiigareyn lahaa baa loo baahan yahay yacni wax walo xanuunkani keenayba waan u baahannahay diyaar baynaan ahayn waxay caadigiiba baynaan diyaar uhayn marka hore marka ayadana bal hadda immediately waxaan u baahannahay halkii laga keeni lahaa ayaa iyadana shaqadeeda la galay lagu tala jiraana in dib loo habeeyo. arrinta iyadaa markaa ilaa iyo 15 milyan baan is odhanayaaba iminkaan gacanta ku hayno ilaa 15 milyan wax badan ma aha laakiin haddana waxay ku hagaagayaan waxyaalaha yaryare equipment-ka wax lagu taskareeyay
in meel walba laga sameeyo meel muxuu ahaa ICU yar laga sameeyay sariiraha in la kordhiyay meelaha karantiinka in la sameeyay waxoogaa yaro rehabilitation dhakhtar cusbitaalada loo sameeyay waxyaalahaas baa ma garanaysa ay ku filaanayaan baan is leenahay 5 milyan marka horeba budgetka maalintii dhibaatada sameeyay budgetka ayaan ka soo garoonay meel baan dhignay World Bank 7.5 million ayay dhibaan diyaar la nahay oo yaala oo la isticmaali karaa maalin dhaweyd Islamic Development Bank iyagana waxay dhahayaan 2.7 million ayaan ku deeqaynaa marka intooda badan waxa weeye qalab leedin soo yimid Islamic Bank oo kale wuxuu leeyahay qalabkiina yarimina keena dabeetana jidaan idinka soo dirayna ama meel ma idinka soo dirayna taasa qalqaalaheeda aan ku jirnaa alaabta intooda badan waxa laga soo yeelinayaa Turkey waxaan u maleynayaa maanta ilaa berri in la keeni doono marka 15 milyan waxa weheliya World Bank ilaa 40 milyan ayuu yidhi baan ku talagelaynaa inaan arrinta idin siino laakiin waa wax process-taasi u baahan aan immediately available ahayn waqti bay qaadanaysaa laakiin waa imanaysaa within the next 2 months haddii la yidhaahdo waa ay imanaysaa taasina waa taa weeye wixii qabanqaabo ah aan ku jirro marka lacag raadina waa ku jira African Development Bank isaga laftiisa waa la hadlaynaa waana hadalku ku jira iyaguna wax ku beeriyaan ayaga ADF koodii baa weli aan effective ahayn 2-3 week dabadeed baa la oranayaa waa effective markaasaan dabeetana iyaga la oran doonaa waxa ku soo dara diyaarna uu yahay waa markaas ay idin sheegi doonaa diyaar now arrinta ascaarta sida Mareeyo sheegay waan la kulanay ganacsatada waan la kulanay ra'iisul wasaaraha la kulmay anagu waan la kulanay technical people ka wada kulmay marka laba arrimood in la isku dheelitiro ayaan u baahnay idin waxa weeyaan in ascaarta halkooda lagu daayo oo iyadoo cashuurtii hoos loo dhigayo the other side na waxay noqonaysaa marka lacagtii soo galaysay baa intii ka sii yaraanaysa marka baahi kale fara badan ayaad ma garanaysaa ayaad leedahay IMF iyo World Bank iyo qolooyinkaasina waxba hoos loo dhigo adigoo sidii kale u baryay in hoos loo dhigo haddana aad ugu dhigan nugla laakiin waan ka dhaadhicinay baahida loo qabo inaan ascaarta isbedelin sidaa daraadeed waxaan isla garanay bariiska iyo timirta ilaa 3 bilood soo socda in cashuurta laga daayo 100% laga daayo waxa kale oo isla garanay burka iyo saliida in iyagana laga daayo cashuurta 50% afarta ay tan baa ugu xoog weyn marka adeegto waxa naga dakhliga naga soo gala iyo xataa waxa imanaya balka imanaya ugu xoog weyn intaasaan isla garanay waan isla eegi doonaa haddii wax kale loo baahdo in la sameeyo iyaduna waxay noqonaysaa wax laga wada hadlo dhinac walba laga eego ayay noqonaysaa marka tan waxay u baahan tahay warqadii waan qornay oo reeri laga bilaabo bisha 15keeda baan isla garanay bishan iminkaan ku jiro 15keeda arbacada soo socday weeyaan mar maranaya arbacadan arbacadan weeye ayay ka bilaabmaysaa ilaa iyo 3 bilood baan 3 bilood mise 4 bilood one of it 3 bilood inay taabaan waaya waa waqtiga la leeyahay way soo dhamaanaysaa ay hubin soo dhamaatay ilaahay dinkii haday soo dhamaawaydo kolba wixii la yeelo wixii loo baahan yahay uma yeeli doona inahaasaan ku soo gabagabeynaya madaxweyne